بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب أنجعلها ميل الدنيا كجبتين كسود هذا قحوتير داب تي في إن شاء الله مقالكم وحكي بولوتين ورركي قدام بي دي بدجنتا حريها قحوتير داب يوكاكما يقضى بكلا مهمة سيادة لسعطان فضلا مقالكم لما استرتا يهدي أجانا سبتاي فضلا سبسكراب نوصار لايك نمودي رجلية وانا كباستين هدي أنتو بلا قضب كنين كوات maanta isniin ah taariikh 24 waxaa ka bilaabatay Kakuma iyo Tolbiye in la siinayo ilmaha dhalashooyinka waaweyn oo cad dhalashada waaweyn oo cad oo ilmaha dhashay 2019 ilaa iyo 2022 marka qaabkii ay galayaan isla maanta oo ah isniin taariikh 24 waxa UNHCR field post Tolbiye oo laga siin doona taariikh 24 oo maanta iyo sidoo kale talaada 25 ee bishan aan ku jirno maalinta oo arbacada waxa laga bixin doonaa UNHCR field post 4 waa maalinta arbacada taariikh 26 iyo sidoo kale khamiista oo 27 ee April 2023 marka intaas ayaa loo shaqeyn doonaa marka dhalashooyinka reer Kakuma iyo Tolbiye dadku joogan fadlan laga faa'iideysto ilmaha dhalashada weyn oo cad loo soo qaado haddii dhankaas kale iyo qodobada boofis haddii aan u leexdo waxaan akhbaaraad ahaynaa dad badan in qoysas la soo wacay qoysaska soo ay mari doonaan CIS oo Nairobi loo qaadi doono mar dhow isla isbuucan hadda horteena nagu soo fuday bisha shanaad taariikh 4 ilaa taariikh 5 dad ayaa la bilamay waxa mari doona wax lahay flight check up ay marayaan caafimaad yar oo kooban ayaa laga qaadayaa si ay u isku diyaariyaan safar gaaban ee u tagi doonaan wadanka ama ay tagi doonaan safar gaaban ee magaalada Nairobi si ay u soo maraan waxayna qaadan doontaa safarkaas ilaa 3 maalmood hal maalin si socda hal maalin xagga taxan soo marayaan iyo hal maalin oo soo laaban doonaan marka waa arrin aad u fiican dad badan ayaa fursadan suwaayay qayb kamid waa loo yeeray qaybta kalena waa loo yeeri doonaa dad ayaa hadda la sii bilamay ay raata naftirkooda in la sii qaadi doono bisha shanaad dhexdeeda qodobka labaad isla dib u dejinta haddii aan sii dhexmaro dad ayaa su'aalo soo weydiiyay su'aalahaas oo ku saabsan in dadkii u dambeeyay ee soo marayay CIS maxaa akhbaarka haysaa kuwaas ilaa hadda waxa jawaab laga hayo malahan laakiin warar hoos sheegayaan in natiijada ay soo baxday ee dhadhaab ay taalo maadaama ay meesha taalo wixii soo baxay waa la arki doonaa in horaan boobsis wax la ma jiro mid kale haddii aan u leexdo dadkaas hadda oo suwaayana caafimaad mar waxa dhacayso qofkii asoo baastaan ama dhicitaan midka waa helin in dadkii baastaan helay oo loo yeeray caafimaad ay maraan marka waa iska suwaay sidoo kale online ayaa laga fiirsan karaa qof walba oo case number iyo password haysta online ay ku fiirinaya online hadii loo soo buuxiyo haddii loo soo buuxin in process qoran tahay jawaabta loo sii karaa haddii uu degdeg ku jirana wuxuu in fariin gaaban u qori karaa emailka RRC Africa si uu kiiskiisa meesha maraa si uu wado marka insha Allah midaas ay akhbaartaas sidoo kale qodobka saddexaad ifatu in maalintii u dambeysay ee Sabtidii maalinta labaad ee Eid in la furay oo xarga ka jaray Faarax Macalin Dawara Tolbiye dhadhaaf inuu xarga ka jaray oo la furay ifatu oo kaliya ay dhiman tahay in shaqooyinkooda la bilaabo si toos ah waxaana la bilaabi doonaa sida ay saxda hadda la sheegi doono bisha shanaad ayaa la howlgali doonaa marka dadaal ay ku jirto sidoo kale meesha ifatu la mari doona waxa la doonaa site ali doona isla dalka bulshada sida gaar ahaan deegaanka iyo qaxootiga cusub oo xagga la geyn doono iyo warar kale muhiim ah marka fadlan haddii intaan soo gaarto ku maasatahay muuqaalka noo sii sheegay subscribe na saaro haddii aad horaan noo saarin sidoo kale like tan ugu dhiirigeliyo laagtan ugu dhiirigeliyo insha Allah waana ku baasitiin asxaabta dhammaan ku xiran qaxootiga dab TV sida dhiiran aad ku xirantihiin channelka waan mahad celinayna wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh